السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصومالية iyo umada kala muslimiinta ah baan salaamaya sanaan kadib maanta waxaan idin wadaa qiso aad u cajiib ah oo ku cimro qaadasho mudan qisadan waxay ka hadlaysaa baarinimada waalidka hadaan war badan idin ku sii badin oo qisadeeda sii gudo galo qisadan waxay ka bilaabanaysaa reer ayaa waxay degnaayeen ama ku noolaayeen meel baadiye ah baadiyaha waa iska taqaaniin guriyo badan oo kugu dhow ma lahan waa meel baadiye ah waa dadka reer baadiyaha soo ahaa jira gara karo kasoo gudub marka reerkan waxay dadka ku nool waxaa kamid ahay aabe indhoolo ah oo ay qisadan ku socotay yani dad badan oo ku nool way jireen laakiin waxaan si gaar ah bis uga hadlayaa dadka qisada ku socoto reerkan waxaa kamid ahay aabe indhoolo ah iyo wiil uu isaga dhalay halkaas wiil bas ayuu dhalay aabaha indhoolana waaye marka wiilkan aabihiis wax walba uu qaban jiray aabihiis wuxuu u baahdo hadii meel la geenayo uu geey jiray yani waa dareemaysan qof indhoole oo hal wiil bis ka dhalay wiilkaas waxa yani mas'uuliyad dul saaran qof walba uu dareemi karaa marka wiilka mid aabihiis wax walba uu qabto ahay marka wiilkiis ayaan markuu muddo wax u qabanaya aabihiis uu dhibsado marka yani waxaan maato aabihiis doonayo uu dhibsaday wiilka marka waxa uu go'aansaday in aabihiis dhan isdhaafsiyo oo wuxuu ku dili karo ama wax kale ku sameyn karo in aabihiis isdhaafsiyo habeenada kamida marka waxaa la go'aansaday cidii waxay reerkii waxay go'aansadeen inay geedo u baxaan yani guuraan markaas wiilkan uu fikiray waxaa fursad u noqotay fursadan inay tahay fursadii aabihiis uu isku dhaafsi lahaa go'aankaas ayuu qaatay marka habeenkii waa la soo baxay wiilkii waxa reerkii waxay ku dhaheen adi aabaha hool kale hanoo qaban aabaha bes soo annaga intaan kale isku filan adi aabaha soo kaxay wiilkii intaas jaanis way ahayd intaas uu rabay haye wiilkii aabihiis soo waday markuu cabaar soo waday oo meel dhexda maraayo ayaa wiilkii wuxuu ku dhahay aabihiis aabe wax yar inta ii fadhiiso waxaan geedkaana korayaa waxaan fiirinayaa reerkii meel ay marayaan haye aabihii meeshuu fadhiisiyey asina wuu soo baxay sidii ayuu uga tagay aabihiis dib dambana ugma soo laaban aabihiina meeshay bahalo ku cuneen ayaan kadib marka wiilkan wuu weynaaday asagana reer uu yeeshay hal wiil bas ayuu dhalay ilaahay amarkiis sidii oo kale indhihii oo indhabeelay indhoolo ayuu noqday markaasaa wiilkiisa asagana sidoo camal aabihiis camal ayaa noqotay wiilkiisa uu dhalay kaliya ayaa u adeegaya asaga wax walba soo qabanaya sidii oo kale wiilka waxa uu dhibsaday aabihiis adeega iyo waxa meelo uu wadaayo waxa uu qabanayo habeenada kamida sidii oo kale waxaa dhacday in ay reerkii go'aansadaan inay geedo u baxaan yani ama ay guuraan sidii ay waxa la go'aansaday in la guuro habeenkii oo lagu balamayaa la gaaray reerkii sidii ay geedii u baxeen wiilkan waxa uu dhahay aabaha soo wad adi haye sidii ay u soo markoo meel dhex marsiinayo ayaa wuxuu ku dhahay wiilkii aabihiis aabe wax yar inta ii fadhiiso geedkana kora waxa fiirinayaa reerkii meel ay naga xigaan aabihii markuu uu dareemay in hadalkan uu asagaba aabihiis hadda kor ku dhahay markaasuu wiilkiisa gacanta ka qabtay wiilkiisa sii baxay markaasuu ku dhahay aabe meeshan aad joogno ma ii tilmaami kartaa yani see u eg tahay wiilkii ayaa ku dhahay haa saasay u eg tahay aabihi wuxuu dareemay inay tahay meeshu aabihiis hadda ka hor bartii uu uga dhaqaaqay markaasuu wuxuu ku dhahay aabe iima soo noqonaysid waan ogahay ee iska bax hadda ka hor aniga meeshan aabihi uga tagay wiilkii hadalkiisa jalaq uma siinay aabihiis sidii ayuu uga tagay sidii ay odaygiina bahal meesha ku cuneen marka sadan faa'iidada ugu weyn wax kale maaha kaliya waa waalidkaaga sidaad hadda ku samaysid ayaa adina biri ilmaha ay kugu sameyn doonaan waa badan sida dhacdo ilaahay waa laga yaabaa inuu ilmaha ku wanaajiyo laakiin sida badan dhacdo sida aad hadda waalidkaaga u tahay ayay ilmahaaga kugu noqon doonaan marka baarnimada ha lagu dadaalo waalidka ilaahay markuu dardaarmayay quraankiisa ayado badan oo ku sheegay in waalidka loo ixsaan sameeyo حكمنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه لم سوكوك رأي بدن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلهي يولي إن أسل عابدو وكحجي وحكى المهن وإن والدك لا أضيعه والدك لو إحسان سميه والدك أضيع
wixii laakiin oo ka baxsan ha ahay diinta islaamka laguma raacayo. Intaas ayaa maanta qodobkeena kusoo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka habeen